السلام عليكم سو dhawaada saaxiibayaal channelka daawaneysaan waa Keyd Channel fadlan channelka dulku cusub iyo subscribe share dheh asxaabtaadan la wadaag maanta waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah gumeysigii Yurubeed ee Soomaaliya gumeysigii Yurubeed ee Soomaaliya qarnigii 19aad Soomaaliya waxay noqotay masrax gumeysi oo u dhaxeeya dalalka kale ah Ingiriiska, Talyaaniga iyo Faransiiska kaasoo horseeday qaybintii Soomaaliya kadib qaybintii shirkii weynaa ee Berlin 1884 ujeedooyinka gumeysiga dhulka Soomaaliya waxay ahayd ujeedo dhaqaale, ujeedo siyaasadeed iyo ujeedo diimeed dhamaantood. Haddaba sidaan hore u soo sheegnay, Soomaaliya waxaa qaybintaas ujeedooyin kala ah ujeedada dhaqaale taasoo ah inay burburiyaan hantida dhulkeena markii loo fiiriyo baaxadiisa iyo dalagyada ka baxaya. Ujeedada siyaasadeed waxay ahayd inay xakameeyaan dadka dhulka leh oo ayagoo ku dhaqaaqaya kala cunsurnimad. ujeedada diimeed ee leedna waxay ahayd inay burburiyaan diinteena suuban diinteena Islaamka iyo dhaqanka firq iyo asarka loo leeyahay ee Soomaalida leedahay iyo mabda'a iyo qiyamka ee Soomaalida leedahay inay ka shaqeeyaan. Haddaba sidee loo qaybiyay Soomaaliya? Dalkeena Soomaaliya waxa uu soo maray weeraradii gumeysiga reer Yurubeed ilaa ay qaybtii dambe qarnigii 19aad sida dalalka kale ee Afrika ay dalalkooda kaga yimaadeen dalal shisheeye kuwaas oo xoolahooda uga faa'iideystay. waddankeena Soomaaliya waxa uu ka mid ah wadamada qura ee waddankooda la gumeystay oo lana kala qaybiyay taasoo Soomaaliya loo qaybiyay 5 qaybood. haddaba waxaan maanta dul istaagaynaa saameynta ka dhalatay qaybinta dhinaca siyaasadeed. Tani markii ay soo galeen gumeysigii Soomaaliya waxa ay raaceen siyaasadda uu ku soo rogmaday kuwa ku aadan muwaadiniinta iyo si loo xadido dhaqaalaha, isu socodka iyo ka hortagga iyo caqabadaha, isla markaana ay sameeyeen soodimo aan dabiici ahayn kuwaasoo u dhaxeeya qaybo ka mid ah dalalka intiisa badan. Aasha mar walba la isweydiiyay ayaa ah muxuu gumeysigu ugu dhiiraday inuu faldambiyeedkan ku kaco qaybinta dhulka Soomaaliya. Gumeysigu ma awoodo inuu ka hor yimaado dad midaysan oo israacsan oo gumeysiga ka hortagaya, laakiin gumeysigii Ingiriiska waxa ay siyaasadda ku qaybiyeen xukun kaasoo dadka Soomaaliya aan gacmaha isqabsan kadibna waxayna halkudhigooda u qaateen dagaalkii kale ee Yurubeed. gaar ahaan Muqdisho waxaa gumeystay Soomaaliya, gaar ahaan waxaa gumeystay waddanka Talyaaniga kaasoo in badan muddo dheer iska haystay kadib xornimadii 1960kii. haddaba waxaan maanta gaarayaa muuqaalada cadaadiska ee gumeysiga. waxaa la dhisay xisbiyo lagu ciqaabayo muwaadiniinta Soomaaliyeed si bahalnimo ah kuwaasoo ku baahsanaa dalka intiisoo dhan: Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo, Damaame, Mandheera iyo waqooyiga meelo kale oo badan. xaaladda cadaadiska ayaa sii darnaatay, gumeysigana wuu ka sii daray Soomaaliya, Faransiis, Talyaani, Ingiriis halkaas oo dalka lagu gaarsiiyey midabta koor iyo xadgudubyo fara badan. habkii loo qaybin lahaa Soomaali weyn dhulkii Soomaali weyn ay si rasmi xiradiisu ugu dhameystirmatay 1897 kadib markii ay qaybsadeen Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Talyaaniga. qaybintaas waxaa lagu saxiixday heshiisyo taxane ah kaasoo dhaqangal ah heshiiskii Ingiriiska iyo Itoobiya oo la saxiixday 1897 si loo sameeyo soodimaha labada dhinac, taasoo saameyn ku yeelatay Ingiriiska ku koobnaana waqooyiga Soomaaliya. sanadkii 1908 waxaa la saxiixay heshiiskii u dhaxeeyay Talyaaniga iyo Xabashida kaasoo sameeyay soodinta u dhaxeysay Soomaaliya iyo dhulka goboleedka Xabashida ay gumeysatay sida hoos ku xusan. waad ku maasantahay daawashadaada iyo la jaanqaadkaada. insha Allah wuxuuna ahaan doonaa taxane oo maalin walba aan soo gelin doono channelkeena Keyd Channel. waad ku maasantahay, fadlan haddaad channelka fiirsatay subscribe noo saar, share asxaabtaada la wadaag.